xisbiga muxaafidka kulmiye ayaa maanta si rasmi ah shaaca uga qaaday inuu xubinnimadii xisbigaasi ka qaaday siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi oo ka mid ahaa aasaasayaashii xisbigaasi inkastoo muddooyinkii u dambeeyay lagu eedeynayay inuu xagliyay dhanka xisbiyada mucaaradka ah warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbigaasi Axmed Cabdi Dheere ayaana lagu shaaciyay warqadan xilka qaadista siyaasiga waxaana faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay qodobada loo cuskaday xubinka saarista siyaasigaasi ee xisbiga afayeenka كلمية عبد الناصر بوني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم wareegto maanta oo ay bishu tahay 8 bishii 10aad 2021 ka soo baxday xisbiga kulmiye ku Maxamuud Xaashi Cabdi oo gudida fulinta xisbiga kulmiye oo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ujeeda waayid xubinnimada xisbiga kulmiye aniga oo tix raacaya go'aanka anshax marinta ah ee ay soo saareen gudida anshaxa xisbiga kulmiye maanta oo ay taariikhdu tahay 8 bishii 10aad 2021 fadhi ay yeesheen kadib markii aan la tashaday hoggaanka xisbiga kulmiye kadib markii aan la tashaday gudida fulinta xisbiga kulmiye kadib markii xubinta qoraalkani khuseeya uu jabiyay dhammaan xeerarka iyo shuruucda u yaala xisbiga kulmiye kadib markii isaga oo aan ka mid ahayn hoggaanka xisbiga kulmiye gudida fulinta xisbiga kulmiye iyo gudida golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu siyaabo khaldan uga faa'iideystay magaca xisbiga kulmiye waxaan go'aamiyay in aan si buuxda u aqbalay go'aanka gudida anshax marinta ah ee xisbiga kulmiye ii soo gudbiyeen oo ah in Maxamuud Xaashi Cabdi uu waayay xubinnimadii xisbiga kulmiye sidaa daraadeed laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 8 bishii 10aad 2021 in aanu Maxamuud Xaashi Cabdi xubin ka ahayn xisbiga kulmiye sheegana karin magaca xisbiga kulmiye Allah mahadle Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye ugu dambeyntii waxa xusid mudan in warqadan ka soo baxday xisbiga kulmiye ee ku aadan xubinka qaadida siyaasiga Maxamuud Xaashi ay ku soo beegmayso muddayada si weyn loo hadalhayay in garab uu hogaaminayo siyaasi Maxamuud Xaashi ay ku biiri doonaan xisbiga mucaaradka wadani iyadoo ay jireen xogo hoose oo sheegay in xilligii doorashooyinkana uu gacan dheeriye siiyay siyaasigu sidii ay u guuleysan lahaayeen xisbiyada mucaaradka